kusoo dhawow Somali Academy haddii aad ka cusub tahay channelka fadlan subscribe notification furo sidii kusoo gaaraan casharada cusub ee kuuliyada isla markaas la soo dhigo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our lesson is about today, lesson 9, knowledge and money. casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan lesson 9 waa casharka sagaalaad. knowledge waa aqoonta and money iyo lacagta. marka waa isbarbardhiga aqoonta iyo lacagta. knowledge waa aqoonta and money iyo lacagta. la soco casharka oo dhammaystiran haddaba. How do you see if we compare knowledge and money? It's a good idea. How do you see if we compare knowledge, aqoonta and money iyo lacagta? It is iyadu a good idea waa fikir wanaagsan. It's a good idea waa fikrad wanaagsan. It's a good idea waa fikrad wanaagsan. How do you see if we compare haddii aan soo barbardhigno knowledge waa aqoonta and money iyo lacagta? Sidoo aragtaa haddii soo barbardhigno aqoonta iyo lacagta? It's a good idea waa fikir wanaagsan. It's a good idea waa fikir wanaagsan. Which is better kee ayaa wanaagsan? Which is better kee ayaa wanaagsan? Knowledge aqoonta and money or money ama lacagta or ama weeyaan or money ama lacagta. In my idea fikirkayga knowledge aqoonta is very important ayaa muhiima. Knowledge very important aqoonta ayaa muhiima. Which is better kee ayaa wanaagsan? Knowledge aqoonta or money ama lacagta. In my idea fikirkayga knowledge aqoonta ayaa is very important aad u muhiima. Why? Because money in this knowledge, because money in this but knowledge never in this. Why sabab buu yiri. Why waa sabab because maxaa yeelay buu yiri money in this lacagtu way dhamaataa but knowledge laakiin aqoontu never in this weligeed ma dhamaato. Why sabab buu yiri because maxaa yeelay never in money lacagtu in this way dhamaataa ma money in lacagtu way dhamaataa but knowledge aqoontu never in this ma dhamaato weligeed. Never in this ma dhamaato weligeed. Why? Because money in this but knowledge never in this.